waxaa dhici kara haddii shirkadda ugu weyn caalamka ee soo saarta CPU-da ay gebi ahaanba xidhanto. Sida ay taasi saameyn ugu yeelan kartaa tiknoolajiyadda caalamka. Muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa waxay tahay CPU, muhiimadaheeda iyo waxa dhici karo haddii la waayo CPU. CPU waxaa laga soo gaabiyey Central Processing Unit, waxaana si kooban loogu qeexaa inay tahay maskaxda kombiyuutarka. CPU-du waa meesha kombiyuutarka ama telefoonka u qaabilsan fulinta inta ugu badan amarada, haddii ay tahay soo kicinta applicationada, xisaabaadka, maamulidda processyada, markaad game ciyaarayso ama browserkaad ku dhex jirto, inta ugu badan shaqooyinka kale ee kombiyuutarku qabtaan. CPU-du qayb muhiim ah ayay ka qaadataa shaqooyinkaasi. Waxaa CPU-da markii ugu horreysay la qaaday 1970-meeyadii, ilaa xilligaasna waxaa mar kasta lagu sameeyay casriyeyn ilaa maanta la marayo CPUs leh 16 cores iyo 12 threads, xawaarahooduna uu gaadhayo 5.7 GHz, halka CPU-da ugu horreysay ay lahayd keliyata hal core iyo hal thread, xawaaraheeduna uu ahaa keliyata 740 kHz, waxaana u dhexeeya xawaare millions ah. Haddaba si loo sameeyo CPU, marka ugu horreysa muhiim ay tahay in la soo helo semiconductor, waxaana jira shirkado soo saara semiconductorkaasi, kadibna ay shirkadaha kale ee sameeya qalabka tiknoolajiyadda sida Apple waxay semiconductorskaasi u bedelaan chips kala duwan sida CPU, GPU, SoC iyo kuwo kale. Marka laga hadlayo suuqa soo saarista semiconductorska, waxaa jira shirkado waaweyn oo tartankaasi ku jira, waxaana ugu weyn shirkadda TSMC oo laga leeyahay dalka Taiwan, suuqa semiconductorskana ku leh saami ku dhow 60%. Xasuusnow, semiconductor la'aan CPU lama samayn karo. Cid kastoo awood u leh suuqa semiconductorska ayaana saameyn ku leh soo saarista CPU-da, waxaana shirkadaha soo saara qalabka tiknoolajiyadda sida Apple, AMD, kuwa kaleba ka qaataan semiconductorskaasi una bedelaan CPU. Ka waran markaasi haddii ay gebi ahaanba shirkadaasi TSMC ay gebi ahaanba xidhanto. Dabcan waxaa jira shirkado kale isku dayi kara inay buuxiyaan booskaasi sida Intel, balse TSMC waa shirkadda ugu horumarsan ee soo saarta chipiska ugu fiican caalamka. haddii ay xidhantana waxaa dhammaanba hoos u dhacaya soo saarista chips cusub. keliyatana maahan CPU ee xitaa dhammaanba qaybaha kala duwan ee chipiska sida memory chipiska, GPU-da, SoC-da iyo dhammaanba qaybaha kale ayaa hoos u dhac weyn ku imanaya. waxaa dib loo noqonayaa waqti fog sida in la adeegsado computers leh refresh rate aad u hooseeyo, graphic cards iyo CPU aan xawaaro lahayn. caalamkao dhanna waxaa laga dareemayaa hoos u dhacaasi maadaama ay qaaliyoobayaan chipsku ayna kor u kacayaan qiimayaasha kombiyuutarada, taleefanada iyo dhammaanba qalabka tiknoolajiyadda ee adeegsada chipiska. meelaha ay xilligan aad ku samayn karto arrinkaasina waxaa ugu muhiimsan horumarinaha artificial intelligence-ga iyo saaxadda gaming-ka oo si weyn ugu tiirsan noocyo badan oo chips ah. in la buuxiyo booskaas, TSMC waxay qaadan kartaa sanado badan, balse caalamka tiknoolajiyaddu waa meel hal abuurku uu qayb weyn ku leeyahay. waxaa la samayn doonaa qorshayaal lagu bedelayo chipiska xitaa haddii ay noqoto in si dhow loo adeegsado quantum computerska oo aan aad ugu tiirsanayn semiconductorska, adeegsadana superconductors. ugu dambayn, shirkadaha soo saara chipisku waxay kaalin muhiim ah kaga jiraan horumarka tiknoolajiyadda. hoos u dhac ku yimaadaana waxaa si weyn hoos ugu dhigaya xawaaraha ay tiknoolajiyaddu xilligan ku socoto. hal abuurka iyo xal in loo raadiyo caqabadaha soo wajaha tiknoolajiyadda waa mid ka mid ah waxyaabaha korinaya tiknoolajiyadda heerkanna soo gaarsiiyey. waxay kula tahay adiga haddii taasi dhacdo, sidee ay bulshadeena u saameyn kartaa? aragtada nagula wadaag qaybta kommentiga, una soo biir KTech Somali. Mahadsanid.